تعلين علم لغتنا Malcolm Gladwell buuggiisa Outliers wuxuu meesha ka saarayaa fikradda ah in guushu ay ka dhalato oo keliya hibada qof leeyahay ama maskaxdiisa amaba ay timaado bacda shaqo adag iyo dadaal. Qoraagu wuxuu isku dayayaa inuu soo bandhigo aragti kale oo odhanaysa guushu waa natiijada waxyaabo badan oo qarsoon oo la isla helay ama faa'iidooyin qarsoon oo qofka iskugu beerbeeray. Waxaa ka mid ah guusha ka qayb qaata waqtiga aad dhalatay ama bisha aad dhalatay, deegaanka aad ku kortay, dhaqanka aad ka timid, fursado gaar ah oo cid kale helin oo qofku helo, iyo xitaa khaladaad aad nasiib u yeelatay inaad ka badbaado. Wuxuu sheegayaa qoraagu in dadka guuleystaa aanay ahayn oo keliya kuwa wax kasbaday ama shaqaystay, ee ay yihiin bani aadam fursado ama nasiib gaar ah helay allana garansiiyey sidii looga faa'iidaysan lahaa. Sideedabana in la helo fursad iyo weliba la garto sidii looga faa'iidaysan lahaa waa laba arrimood oo aad u kala duwan. Sidaas daraaddeed Gladwell wuxuu buuggiisan ku soo jeedinayaa in halkii guuleystayaasha laga fahloon lahaa kartidooda ama hibada ay libinta ku mutaysteen, la baadho xaaladihii sababay iyo asalkii waxa u sahlay guusha. qoraagu wuxuu ku bilaabayaa buuggiisa warin ku saabsan ciyaartooyda hockeyda ka ciyaara waddanka Canada. Arrin aad iyo aad u cajiib ah ayuu ogaaday. Wuxuu soo saaray in intooda badan ay dhasheen bilaha hore ee sanadka, waa January, February iyo March. Haddaba maxay tahay sababtu? Canada marka dhallaanka ciyaartan ciyaaro loo qabanayo tartamada, hadba intii sanadku mid ah dhalatay waxaa loo sameeyaa liig iyo koob ay ka ciyaaraan. Tusaale ahaan, liiga carruurta dhalatay 1999 waxaa ka ciyaara carruurta dhalatay January 1999 ilaa December 1999, taasoo la macno ah in ilmo dhashay January sanadkaas uu isla koob ka ciyaaro wiil dhashay December isla sanadka, iyadoo farqiga da'doodu markaa caadiyan tahay 12 bilood. Ninku ka weyne gubaas ka weyne kuwa bilaha hore dhasha waxa ay ka hor koraan maskaxiyan iyo jir ahaanba kuwa bilaha dambe dhashay, ileen way ka waaweyn yihiin, taasoo iyana dhalisa inay helaan waqti ka badan kuwa kale oo ay ku tababartaan ama ku kororsadaan xirfado dheeraad ah. Ilaa ninkan wuxuu haystaa faa'iido 12 bilood ah ama 8 bilood ah, iyadoo la wada og yahay sida marka la yaryar yahay ay farqi u samayso faa'iidada jireed ama maskaxeed. Nasiibka saaciiday daraadii waxaa isla markaana loo gartaa kuwa bilaha hore dhashay inay ka hibo badan yihiin dhallaankii kale, iyadoo aanay xaqiiqadu sidaa ahayn ay ka hor dhasheen oo waxay u dhowdahay in koobabka waaweyn loo doorto inay ciyaaraan kuwa bilaha hore dhashay. Faa'iidada ay nasiibka u heleen halka kuma joogto kolka la iskaba leekaado la weynaadana waxaa loogu kala xariifsanaadaa hockeyda sidii loo kala weynaa yaraantii. Tusaalahan wuxuu iftiiminaya in asbaabo aad u yaryar daraadii sida bisha aad dhalatay ay ka qayb qaadan karaan go'aaminta guusha oo aanay marmarka qaar laba taxalluqin guushu hibada rabbaaniga ah. Sidoo kale shuruucda iyo sistamyada lagu xulo hibada laftigeedu waxa uu istaafiyaa dadka sidoo inoo bayaamiyey qoraagu. Gladwell wuxuu buugga ku lafagurayaa in si loo gaadho heerka ugu sareeya xirfad kasta loo baahan yahay in la geliyo ugu yaraan 10,000 saacadood oo tababar ah. Waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay ninka la yiraahdo Bill Gates. Bill Gates waxa uu nasiib u yeeshay inuu helo kombiyuutar uu si xor ah u isticmaalo isagoo 13 jir ah. Kuulka uu dhiganayay markaa Bill Gates ee oran jiray Lakeside School wuxuu lahaa kombiyuutar, iyadoo waqtigaas kombiyuutaradu ay aad qaali u ahaayeen ama aanay soo gaadhin jaamacadaha qaar weli. Intaa keliya ma ahee, Bill Gates wuxuu u horay habeen iyo maalin si uu u barto programmingka iyo kombiyuutarka, heer uu ka gaadhay in markii waqtigii uu ku lahaa kombiyuutarku iskuulkiisu xadidmay oo heshiis la galo shirkad softweerada samaysa si uu ugu tijaabiyo ikhtiraaciyadooda, iyana ay u siiyaan waqti uu ku sii kororsado aqoontiisii oo uu ku isticmaalo kombiyuutarkooda. Sidaas laajligeed waxaa la odhan karaa wuxuu helay waqti ku filan oo uu ku kororsado waaya aragnimo aad uga badan da'diisii waqtigaas. Markii uu aasaasayay Microsoft 1970 waxa uu haystay 10,000 saacadood oo tababar ah iyo xeeldheeri kale oo si dheer oo ay adag tahay in la helaa. Tani waxay caddaynaysaa inaan guusha lagu gaadhin hibada oo keliya, balse ay ku timaado shaqo adag, tababar joogto ah iyo helidda fursado xilliyadii ku habboonaa, oo iyaduna ah qodob aad u muhiim ah.